Soomaaliyeed ee qeybaha kala duwan ee ganacsiga Soomaaliya iyo gobolladaba ka yimid dadka marti sharafta leh ee meel kasta oo ama Soomaaliya ama dibaddaba ka yimid ee shirkan weyn ka soo qayb galay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa sharaf ii ah inaan maanta ka soo qayb galo madashan qiimaha leh ee lagu soo bandhigayo ama madasha labaad ee lagu soo bandhigayo ganacsiga ka dhaxeeyo dalka Soomaaliya iyo dalka walaalaha nahay ee wada ganacsiga iyo xiriirka soo jireenka ka dhaxeeyay ee ganacsatadooda martidana nala joogaan Italy. madashii ka horreysay waxay ka dhacday waddanka Talyaaniga muddo gaaban gudaheedna waxaa halkan ka dhacayo madashii labaad ee lagu dhiirigelinayo ganacsi iyo maalgashi inuu dhex maro dalka Soomaaliya iyo Talyaaniga. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qabanqaabiyaashii barnaamijkan hay-adda UNIDO, wasaaradda ganacsiga, jambarka, safaaradda Talyaaniga, qof kasta oo rool ku lahay oo dhan inaan u mahadceliyo qiimaha ay leedahayna iyo magnitude-ka iyo mugga ay leedahay in dadkan la isu keeno maalgashi iyo ganacsi iyo maxaan ku dhahaa laga sheekaysto aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa. si gaar ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ambassador Alberto oo rool weyn ku leh doorka ay Soomaaliya iyo Talyaaniga xiriir ganacsi iyo wax kasta oo qiimo leh inuu hormariyo. anoo ku hadlaya sidoo kale magaca dowladdana waan kaaga mahadcelinayaa. waxaan rabaa inaan si gooni ah u soo dhoweeyo ganacsatadii wakhtiga soo qaadatay ee ku soo mataqaanaa timekooda iyo maalkooda iyo fikirkoodaba soo geliyey oo halkan martida noogu ah oo dalka Talyaaniga noogu timid inaan dhaho soo dhowaada Soomaaliya dowladdeeda iyo shacabkeeda waa idiin soo dhoweynayaan. waxaan rabnaa inaan bogaadino xiriirkaas kor u qaadno. waxaan rabnaa inaan idiin sheegno idina badan qaadno inay Soomaaliya dhab ka tahay dhiirigelinayso weliba waddamada wakhtigan oo kaleento nala yeesho xiriirka ganacsiga waddamada kale way noogu duwan yihiin. si gooni ayaad meel gooni nooga ooli doontaan waana idiin soo dhoweynaynaa. wax kastoo fududayn kartana dowladda Soomaaliyana waa sameynay ganacsatadeennana si dhab ay diyaar u yihiin. waxaad ka fahmi kartaa sida buuxay ugu soo qayb galeen ayagana si gooniyaan u soo dhoweynaya. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego anigoo wasaaradda qorsheynta ka socdo oo portfolio-ha amaba qaybta maalgashiga Soomaaliya wakiil gooni kaga ah dowladda Soomaaliya inay Soomaaliya diyaar u tahay oo aynu ka shaqaynayno dowlad ama xukuumadda dan qaran in shuruucdii maalgashiga Soomaaliya si gooni ah aan waqti u gelinay 9 bil oo aan joognay waxaan baasgaraynay shuruuc muhiim u ah maalgashiga Soomaaliya oo waxaa ka mid ahaa sharcigii ilaalinayay qofka maalgashadaha ah iyo hantidiisaba inaan la taaban karin la ilaalinayo nugu weyn yihiin si dalkeena u dhiirigelin in la soo maalgashado. sharcigii ahaa Investor and Investment Protection Law oo already madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay. sidoo kale hore waxaa loo baasgareeyay sharcigii maalgashiga. hadda waxaa golaha baarlamaanka golaha shacabka weliba yaalla oo akhrintiisii koowaad maray dhisidii hay-addii maalgashiga Soomaaliyeed oo ah hay-addii ahayd ama garabkii maalgashiga Soomaaliya market gareynayay ee dowladda wakiilka ka ahaa. akhrintiisii koowaad golaha wasiiradana wuu maray baarlamaanka golaha shacabkana wuu yaallaa. maadaama baarlamaanka kala fadhigiisii saddexaad shalay uu furmay wuxuu u gudbi doonaa akhrinta labaad iyo saddexaad marka la gudbiyo aqalka sare insha Allah bisha soo socoto ama 2 bilood soo socoto sharcigaas isagana wuu naga dhamaanayaa. waxayna dhisi doonaa hay-addii maalgashiga Soomaaliya market gareynaysay oo ka dowlad ahaan magaca dowladda iyo mansabka iyo maxaan ku dhahaa ku market gareynaysay. waxaasoo dhan waxay infrastructure u yihiin in Soomaaliya ay diyaar u tahay in maalgashi ay aado. sidoo kale waxaan sameynay Soomaaliya waxay qayb ka tahay hay-adda damaanadda ee World Bank-ga oo la dhahay MIGA ama Multilateral Investment Guarantee Agency oo ah waddamada political risks ka jirto amaba khatarada siyaasadeed ama ka iman karaan
hay-adda damaanadda oo maalgashigaas damaanad qaadaysay oo ka mid ah 4 qaybood oo World Bank ka mid yahay waa qayb ka mid ah Soomaaliya wadamo ilaa ay dhowr iyo 80 xubinka Soomaaliyana qayb ay ka tahay that means haddii qof amaba company oo Soomaaliya la maalgashto dhaqaalihiisa wixii ka imaado riski ah inay damaanad qaadaan ayagana diyaar u yihiin qofkii haddaba waxay already ay mataqaanaa ay insure gareeyeen ganacsiyo qaarkood ku yaalaan Baydhabo qaar Hargeysa kuwa kalentana hadda process ay doonayaan inay geliyaan soo arintaas ayadana dhiirigelin waxay u tahay dadka doonaya maalgashi Soomaaliya inay suubiyaan inaynu qayb ka nahay hay-adaha ama infrastructure-ka fududayn karo in ganacsigaas la sameeyo waa inay jiraan shuruuc dhiirigelinayso iyo heshiisyo aan kula jirno wadamada adduunka oo ayadana qayb ay ka noqon karaan shuruucaha kalenta company loogiga kamid ama biilkii kambaniyada registrationska kamid ahaa quality control biilkii oo Somali Bureau of Standards ay ku dhisantaa kamid ah shuruuc aad u tiro badan oo economic reformka qaybka ah oo already dalka markii hore aan ooli jirin oo hadda already dawladdan iyo dawladdii ka horeysaba ay shuruucdaas ay suubisaa jirto waxaasoo dhan waxay muujinay sidii dhab nooga tahay in Soomaaliya la maalgashto waxaa intaas dheer waqtiga ugu horeeya markii wadamada post conflictiga ka soo baxaan wadanka marka dadka maalgashiga ugu imaado ama waxay dhahaan early mover advantage Allah dadka ku soo hormaro faa'iidooyin dheeri ay leeyihiin dadkaas noogu soo hormaro oo dalkeena wax nala yeesho waxa u ballan qaadaynaa in faa'iidooyin ka badan dadka gadaal ka imaan doona inay yeelan doonaan soo dadka noo imaaday sidaas aan u soo dhiirigelinayna hadduu Ilaahay ilaa insha Allah sidoo kale waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya inaan taabto waa ogtihiin Soomaaliya sanadkan dabayaaqadiisa waxyaabo badan oo inaan ka gudubna aan rabno waxaa ka mid ah deyn cafinti oo gabagaba marayso oo dhowr sano Soomaaliya ku soo jirtay deyn